kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooda ku haystay ee islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayakoo dunuub samaynayana adduunyada ka baxay ayakana nebigu ka hadhi maayo jahannama lagu guri ilaahay jalla wa ala markuu naarta jahannama uu kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada odhan doonaan diintii islaamkeed u nisbad sheeganayseen hame waxbay inii qabatay sawnaka meel keliya ku wada jirnama hal mar keliya ayay odhan doonaan waa muxammadaa waa muxammadaa waa muxammadaa markaa buu nebigu odhan doonaa yaa rabbi kuwa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummaddaydii iyo waa cusaaddii ummaddaydee cadaabka intaad cadaabtay ayaad kaga aargoosatay ilaahayow ilaahow shafaacaddeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahannama uu ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu yidhi iyakoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaha magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi deedna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoogiibaa soo bixi doonaa deedna marka jidhkoogu sidoodii uu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaasi waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaaddii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegay naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allahdii adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxba inii qabatay odhan doonaan sawnaka meel keliya ku wada jirnama inikoo laa ilaaha ila allah leh deedna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa qulu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sal alla alay wasalam يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والصبح ثم يعرج الذين باتوا فيكم وهو أعلم بهم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بانكم هذينا صلاة عصر إن سوى فجيه إن جمع الله صو حاضرنا وصلاة آذو قيمة بدن ويان نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كان أخرني waxa uu noo sheegayaa insaankan dushiisa malaa'igtu inay isku bedelayso malaa'igta gaarka qabata malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta dharaartii kuwii maanta inala oolay casarkii markii la tukaday bay noqonayaan kuwa casarka intay yimaadaan caawa inala baryana salaada fajr markaan tukanay noqonayaan xaqay ka yimaadeen bay ku noqonayaan dhinaca ilaahay jalla wa ala malaa'igtii inala bariday markay ilaahay dhinaciisa u laabaan ayuu ilaahay weydiin uu leeyahay addoomahaygii seed kaga timaadeen uu og yahay addoon kastoo innaka inaga mida xaaladda uu ku sugan yahay ilaahay waa ka warqabaa inta adeecaysa iyo inta caasinaysa ilaahay waa ka warqabaa inta gaajoonaysa iyo inta dharagsan ilaahay waa ka warqabaa inta bugta iyo inta caafimaadka qabta ilaahay waa ka warqabaa inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa ilaahay waa ka warqabaa inta murugsan iyo inta faraxsan ilaahay waa ka warqabaa saacadda inta soo islaamaysa hidaayadda ilaahay ku galladaysanayo iyo inta gaalnimada ku dhimanaysa ilaahay waa ka warqabaa haddana ilaahay isagoo sharfaya addoomihiisa muuminiinta ee salaadaha ilaaliya jamaca ku ilaaliya isagoo ilaahay sharfaya
ama sheegid laynoo sheegaya salaada casar qiimaha ay leedahay ugu fadhido diinta islaamka ayuu ilaahay weydiinu malaa'igtiisa ku leeyahay kayfa taraktum cibaadii seed kaga timaadeen addoomahaygii markaasay leeyihiin ayakoo tukanayana waan u tagnay ayakoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin allah inaga dhiga kuwaas maalin walba qaa'imadaaba ilaahay la horgeynayaa ka warrama magacaaga haddii laga helo ka waran maalin walba suma liibaanin haddii magacaaga qaa'imada laga waayose khasaare laanna bini aadamkan ilaahay kuma qiimeeya maaragtaanay jirhkooga ilaahay kuma qiimeeya bini aadamka waxay haystaan ee bannaanka ka yaalana ilaahay kuma qiimeeyo ilaahay bini aadamka waxa uu ku qiimeeyaa waa diinta waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay xadhigiisa waa ilaahay awaamirtiisa qofka bini aadamku markuu qaato ayuu qofka bini aadamku qiimo yeelanayaa qofka ilaahay diinkiisa ayaa qof ka dhigaya diin la'aan qofku macno yeelan maayo ogow qofku qabiilkiisu macno u samayni maayo lacagtuna macno kuu samayni mayso aqoonta adduunyada aad leedahayna macno kuu samayni mayso waddankaad ku nooshahay nuucuu yahayna macno kuu samayni maayo darajada adduunyada taagan tahayna macno kuu samayni mayso qofka bini aadamka waxa macnaha u samaynaya waa ilaahay taacadiisa kayfa taraktum cibaadii salaada subax iyo salaada casar malaa'igtaas bedelaysa albaab ayaa jira samada adduunyadu ay leedahay oo la furo maalintii mar baa la furaa nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam salaada duhur ka hor baa nabiga la arkay isagoo 4 rakaca tukanaya markaa saxaabadu ku yiraahdeen saacadan salaada 4 rakacadood ee labada aad u tukatay macnaha ku fadhida nabi Allah noo sheeg markaa buu nabigu yiri waa saacad albaab samada adduunyadu ay leedahay baa la furaa marka waxaan jecelahay buu nabigu yiri amal wanaagsan inuu saacada xaq ilaahay u gaadho amal wanaagsan inuu fuulo samada ayaan jecelahay buu nabigu yiri alayhi salaatu wassalaam waxa kale oo nabigu noo sheegay isniinta iyo khamiista labada cisho nabigu waa soomi jiray soonka labada cisho aad soomaysan noo sheeg baa lagu yiri wuxuu yiri yawm al-isniin wa yawm al-khamiis amalka bini aadamku ay qabtaan baa ilaahay la horgeeyaa waa la hordhigayaa khayr iyo shar wixii aad shaqaysaa ilaahay la horgeeyay adoon kasto ilaahay aanu shariig yeelin dambigiisa waa la dhaafi buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam laakiin laba qof oo dhexdoodaasi ay jirto cadaawo ilaahay wuxuu raada kuwa liiskooga kuwa amalkooga ha furin celiya ilaa dhexdooda ay iska soo saamaxayaan iska heshinayaan ilaa ay isa saamaxayaan iyo kas cafinayaan amalkooga ha furin waa ilaahay raada habeenkii laylatul isra wal mi'raj samada adduunyada markii nabigeenu alayhi salaatu wasalaam ay gaadheen isagiyo jibriil albaabka samadu garaacay markaasuu yiri waa ayaa lagu yiri waa jibriil ayaa kula socda lagu yiri muhammad baa ila socda miyaa loo yeedhay ha waa loo yeedhay sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dadna markaas malaa'iktu ay yiraahdeen adoonkan loo yeedhay rabbigii u yeedhay ayaa nicmo la yiraahdeen iridii bay ka fureen waa samada adduunyada dadna markaa nabigu wuxuu la kulmay shakhsi ilaahay uu siiyay qaama dharar iyo qurux laakiin markuu xagga midig eega shakhsigaasi waa farxaa xagga bidix markuu eegana uu murugoonayaa markaa buu nabigu yiri jibriil waa ayaa buu adoonkan awoodan ilaahay siiyay quruxdan leh markaa baa lagu yiri aadam calayhi salaam abul bashar weeyaan waa aabaha أبونا آدم ويان 60 ذراعا في السماء نبي آدم انتو لك لحظة حصول بولك در لأن مركز وما حي مركو حق المدق ايغانا او فرحيا حق بدح مركو ديمودانا او مرغونا يا حق المدق وحا او اركا او لا تصا اولاديسا انت وناكسن جنة غليسا ايا لا تصا لأنه كفرحا حاجة بدحبه اجي علمه انت حنحن
النار كودا هذا نيس أهل النار نقول إنسان لا تصاب اللجود لأنه كم مرجودا مركع عمل وناكسن هدات سميسو أبها آدم بعد كفر حساء وجو عمل حن أو النار لجو قال يا هدات سميسنا آدم عليه السلام بعد كم مرج حساء وجو هذيك مثلا أنا كسوقات وبتكلم أرورت هذا مركب مد وح وناكسن لجاجة شيء أنا واتفرحي mid marka waxun lagaaga sheegana waad ka nixisoo maaha aadam calayhi salaam oo ubadkiisa dhan adduunka ay wada joogaan oo inta fiican iyo inta xun waliba inta xun ay ka badan tahay inta wanaagsan intee buu nebi aadam murugoonaya markaas murug maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado bani aadamka cadaalada sida loo dulkeena madaxooda qof walba dhididka asaga jirkiisa ka baxay uu dhulka intuu galo dib u soo noqdo qof walba dambigiisu intuu ahaa dhididkiisu yimaado qaar ba nabigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha qaar buu iman doonaa maaragtaanay jilbaha qaar buu iman doonaa maaragtaanay halka gunti qabadka dhixirka halka mardhaxda qaar buu iman doonaa halka maaragtaanay garbaha qaar buu iman doonaa buu nabigu yiri halka qowlalada wa minhum man yuljimuhum al'araqu iljama halkaasuu iman doonaa dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dambigiisu ahaa ayaa soo gaadhi doonaa yani waa bad adiga ku gaaro cid kale kula qabin adcaada halka inaga gubaysa bani aadamka saa loo duldhigi doonaa madaxooga وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بإلهين يموج ساسا الله سكون نحسو عندنا خلقك إلهي أبو ريونا مركاسي ددك أورندونا دباتة ما أنت أن كجرنا أيها نجا ساري كره بس كي إلهي أدو ونتجنايو ربك نوغا إرجيا مركاس الله أورندونا آدم عليه السلام أبهني آدم إن كفر عمني وبشر كأوردن آباؤه والنبي يقوله الرئي بني آدم كان أسقوها إلى النبي آدم النبي بوهاي كاب الله إيمانا يا مركا آدم عليه السلام والأورندونا اشفع لنا ربك نوغا إرجي مانتا نو شفع عبد الله وادو جدا دباتة أن كجرنا ميلانو دقاقا إنما قرنين والله قاوين يهون لقتين يحي أدعاده هل كان نجوب بس ماذا حبنا هذا كسر الله دول كانه بل هل ساعة ما أنت عدادة بالله جوكس ما كريست بحضن ملاين إسا كنتم كن أو صندوق بابنك قيام الله تاجنانه بركاب النبي آدم لا يحي وجنة دم بمكة صوب حدين إلا قف يجي مويانه جنة جنة اللي آدم عليه السلام مركي الله أبو رجلنا إلى هيك لي جنة دي محال كذا صوب بعدين وقف كيجي أنا وان قف يقول لي وان دم ببانقلي دم بقاسمحوها فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جنة داس واتاسو كل حياة با إلهي كيري ماشا دونتان كمرا واحد دونتان كدحونا لكن جيت كاس هو دواننا با إلهي جيت كاس هذا جيت كا هو دواتان ظالمين تتكمل نقول إنسان بالويدي آدم عليه السلام جيت كيبو عنا صدوق عنا جيت كا ليدو إبليس عليه اللعنة ومركه هربا كل دارتي آدم يدري دي سينو جنة كديرين دونو وطريقة حقنا وكديرين دونو أيا ما ركتان يدي يا آدم geedka lagu diiday cunidiisa ma taqaana fawaayda ku jirta ma garanayno sagay xawaa wuxuu leeyahay hadaad geedka cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama waligiin iyo allihiin jannadaad ku wari lahaydeen bal walabada sifay binaadamku mulki buu jecel yahay mulki daa'ima nolol daa'ima raaxad daa'ima barwaaqo joogta ah taana jannada un bay tahay kama taalo لأن الشيطان كيف مركب ماشين تاجن ونبي آدم جيت كي مركو عنيبة جنة لقى سو صاري يوم الجمعة لقى سو صاري بعد صلاة العصر جمعة الله أبوري جمعة جنة اللقليي جمعة جنة لقى سو صاري
jimca saacada qiyaamadu dhici doonta maalinta jimcada saacata al-ijaaba ku jirto ducada la aqbalaya ku dhex jirta يوم الجمعة النبي آدم لا أبوري بعد العصر مال الجمعة جنة اللي مال الجمعة جنة ولا قصو ساري النبي آدم قفك الجنة الله قصو ساري نوا قف كيبوها وقيت كاسعوني بس وحالك عن كفهم إليه العلماء ولا كفهمها مركزتو بني آدم كو أي ذنبي أي كل عان إله الرحمة دي سيكسي ديرانا يعني مركزتو الطاعة يا خير الله تمادنا إلهي نحريستي سي جنة سي رضيه سي بدوسي دواتي آدم عليه السلام وحوله جنة دنبا دنبقيقي أنو أنقلبت كقصوا بحذين أرضه أوتك غير كي نوح بالله إيمان عليه السلام نبي النوح وحوله يا إساقنا وارون أنا الرسول الله أقوه الرئيي لكن دعاء دي إلى أقبل أيي وأنا قاعدونك قصوا استعماله ومضى يدكوها باريان لي رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا رب إني مغلوب فانتصر وأنا قاعد ما دام الدعاء دي كلية لأقبل يأدونك أنا وأنا مضى يدكوها باري كدعاء دي سلا أقبل يا ما أنت أنا جماعة شفاعتنا أنو مليه بوليه اذهبوا إلى غيري إلى إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم بالله إيمان نبي إبراهيم مركي الله يمادل إلى خليل كإلهي بعطاه صاحب كإلهي ما شفاعة قاد وعليه صدح بيننا دويد دوشة دكوس وشيء أيال ما تكبق يا إلا وقفت بوليه هي مسبين صدح كليه إنك ما أنت هي مسبين بينك دعوة والنور الشيء سي أو دم بكرة نبي إبراهيم صدح بين بالله يا دعوة صدح ذي بان كبقى يا مانتين اللي يقول عقاب والله يقول قبته صدح لبين سيديك كلا هايان بنت كوباد وحي حيد مالنتو نبي ابراهيم او مع سنه اصنامتنا يعبدوا انه كججبيو اللي يدي وعيد ومغالده عندنا كو هدميسه برنامجka uga soo baxa aqalada maalintii la yiri ayaa waliba ciidan loo diray aqaladooda dadka ka soo saara boqorkii baa wada doonayee askartii markay nabi ibraahim u yimaadeen wuxuu yiri anu ma socon karayo waan xanuunsanahay buu ku yiri faqala inni saqim anu waan bukaabudi waa jiranahay runtii uu jiranaa muxuu ka jiranaa dadkan gaalnimada ku dhimanaya ee dhagax gacantooda ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsado weeyaan innaka taariku salaagu muna xanuujiya ya meel kasta macsiba ka dhacaysa kama damqanayn ibraahim calayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanaya ee shirkiga ku jira laana shirkigu waa dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan al-hakim inagii samcu ku yiri ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim ilaahay gheyrkii oo la barya ilaahay gheyrkii oo la tala saarta ilaahay gheyrkii oo laga baqa ilaahay gheyrkii oo la rajeeya ilaahay gheyrkii oo maaragtaan baahida loo sheegta waa shirk إن الشرك لظلم عظيم ما دام قريات سميستين دقح قعنتين أتكو سميستين أتباهدين أو شيئا إنسان والشرك ويان إلهي وضو الشريك يشين إلهي اللهم الشريك يلو إلهي كليقي إلا بريوم متيستي بس تاسا أمرك النبي إبراهيم حنوجيني سيساقا إنك أنا مانتا أقل ديني أصحاب ديني قرابة ديني أهل ديني ما قبل صلاة meeqa u socota sidii ilaahay uu sarraalika ahayn yaa ka damqanaya maanta mid walaalkaaga hadduu jiran yahay xanuunsan yahay waad u damqanoo markaaba dhakhtarkaad geyn hadduu gaajoonayo markaaba cunnaad siin hadday reerkiisii dhib ku dhacday dhibaatadaa waad uga damqan laakiin salaad la'aan cid ka damqanaysa maanta way yartahay dhibta ugu weyna maanta ummadda ku dhacda waa maxay agteennii baa nuqsaan diineed ay taallaa oo dadkii eheladeennii maalinba maalinta ka dambaysay ilaahay ka fogaanayaan kama murugoonayna kamana damqanayno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi innii saqiim anu waan jiranahay buu yidhi beeni waa taas kolkay ka tageen waa ka asnaamtii buu qabto uu jajabiyey kii weynaa buu reebay bas faaskii uu ku jajabiyeyna kii weynaa buu qoorta u sudhay magaaladii markii lagu soo noqday meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yidhaahdeen ayaa aalihadeenni sidaa u jajabiyo u galay waxay yidhahdeen magaalada qof kale kagamanu tegine yarkii yaraayo ibraahim baanu kaga tegnay keligii bas waliba ibraahim waxaa lagu yaqaanay asnaamteena mar walba uu caayi jiray ibraahim calayhi salaam aabihii aazar ayaa asnaamta gacantiisa ku samayni jiray
deedna intuu u dhiiba asaga oo yar buu ku odhan jiray oradoo magaalada inoo geeyo suuqa dhigoo inoo iibgee markaabuu nebi ibraahim intuu xagga kaga soo xidha xadhig ama xagga ayuu dhulka jiidi jiray markaasuu odhan jiray man yashtari minii ayaa aniga iga gadanaya man laa yanfac walaa yadur midaan dhib iyo dheef midna aanan lahayn kiine baa iga gadanaya buu odhan jiray ilaa nebi ibraahim aabbihii lagu soo dacwayo la yidhaahdo yarkaaga ilaahyadeeda ha nooga dhiibin uu naga aflagaadaynaya maalin walba cajiib waa nebiga isaga oo yar hooyadii ku yidhi hooy aniga ayaa i rabbeeya yaa aniga i barbaariyo wax isiiyo baahideeda daboola markaa bay ku tiri de aniga markaa buu hooy adigana ayaa ku rabbeeyo baahidaada daboola markaa bay ku tiri de aabbaha markaa waa hagaag aabbahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wax u soo dhiiba markaa bay tiri de namruud boqorkii markaa buu waa hagaaga namruudna isagana rabbigee ka sarreeyo wax u dhiiba markaa bay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namruud rabbi ka sarreeya ma jiray aamus yaa lagu maqlinay bay ku tiri markaasuu yidhi hooyo may anu rabbi baan raadinaya rabbigii weynaa ee koonka iyo kaa'inaadka abuuray baan rabaa inaan garta buu yidhi ibraahim fitradii baa yaa dhaqaaqaysa moogta fitra saliima ku jirta qalbigiisa fitrad lehe allah baa koonka ka taliya allah baa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhib iyo dheef ilaahay baa haya nolosha iyo dhimashada ilaahay baa haya ciz iyo dulli xagga alluu ka yimaadaa faqri iyo qina ilaahay baa keena xanuunka iyo caafimaadkana allah baa keena cid kale ma keento cid kale ma keento ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayni jiray asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya la yidhaha la soo qabto maxkamaddii baa la keenay hadaa sidaa u galay qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun buu yidhi in kaanuu yantiquun hadaa sidaa u jajabiya maya kawgii weynaa waa kan baad arkaysaa mufaaska qoorta ku sita isagaa cadhooday oo xanaaqoo yidhi aniga yaryarka sidee layla caabudaa harka isaga weydiiya buu yidhi beenta labaadina waa taas bal labada beenood horta eega u horraysa cajiib soo maa beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad dow saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaan intuu ragga ka qaato fara xumeeya markaasuu nebi ibraahim xaaskiisa ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskayga way iga kaa fara xumaynayaanoo way ku dhibayaane ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode waa walaashay baan odhaniye adiguna waxaa tidhahdaa buu ku yidhi waa walaalkay dhabuu ka yidhi beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeenoo xagga diintee walaala ka ahaayeen innama almu'minuuna wax dad muslima oo iimaan la labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi saddexdaa been buu nebi ibraahim uu leeyahay banka qiyaame in laygu qabtaan ka baqayaa meeqa beena innaka jeebadaha inooga buuxda maanta beentii baa iska noqotayba wax iska caadiyadee oday baa inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi beenta iska dhaaf been baa lagugu sheegaya adige beenalow ha noqon markaa buuhi waa yahay aabba haya aab ku noqon maayo waa seexanayaa buuhi odaygu uu yar jeebsado yarkiisii baa u yimid oo yidhi aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taaganoo ku doonaya markaa buuhi uu jiifaa ka dhag yidhi kii yaraa baa yidhi baleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay asagiina waa barayaa buuhi isagaa macallina buu yidhi yaa macallina aabbihii dhannaabaa macallina mid kale inankiisa ku yidhi warya sigaar baad cabtaa baa la dhuudhuumataa maxaa ka jira aabba ciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anu sigaarka ma cabo waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabbin buu ka yidhi haya aabbo intuu lacagta soo saaruu ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana beenta innakaa maanta mujtamaceenna barayna ibraahim calayhi salaam wuxuu leeyahay saddexdaa beenood ayaan adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi ibraahim alkhaliil marka shafaacadan anigu ma lihiye idhabuu ilaa hayrii muusa loo iman calayhi salaam nebi muusena wuxuu leeyay anu naf bini aadana ayaan gooyey
oo halkii naftii maalinta aan dilay feerka ku dilay inaan lagu qabtaan ka baqayaa maanta idhabuu ilaa ghayri fayatuuna ilaa ciisa ibn maryam nabiyullaahi ciisa calayhi salaam baa u iman doonaan nabi ciise markii loo yimaado isagu wax cudurdaara sheegan maayo laakiin waxuu leeyahay anigu shafaacadan malihi fayadhabuuna ilaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nabigeennii udgoona calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxamed adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay imaamul ambiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay khaatamu nabiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay markaasay leeyihiin noo shafaacad qaad oo ilaahay nooga ergee markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga idaa samictum almu'adina faquluu mithla maa yaquulu ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة مركا آذانك آد مغليسان أي النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنك إريادة أوليه كدب هذا آذانك مركو دمادنا أنا يقص لي أبو النبي وسيلنا إلهي إي ويدية وسيلة إلهي إي ويدية وسيلة وحويان ومنزلة جنة كتالة ومنزلة الدون أقلو جنة أقود درجة سريسة الدون الدومها إلهي كمدة بقلي دونا الدون كاسنا وحاكون رجقبا إنه نقون دونا أنا قبل رسولك يلي نقا وسيلة إلهي إي ويدية بالك قيامها شفاعة إذا أحلل وذيب رسولك يلي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها كدعاء سل أقبل إهمانته أنيقا وأن دقاقب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرش ربي حق عرش كانوا دقاقي فأقع ساجدا لربي ربي جايبا سجود ودعي دونا وحي إلهي إيثر دونا بود أمان الله أمانتي وأنا هوري أدون كدو شيء أن لو أمان وأنا أن هوري إيسومرين أيام مالنتا إلهي إيثر دونا بين مركبا إلهي أماني دونا مركبا لورد دونا يا محمد ارفع راسك مدح كروقات سل تعطى شيغا واحد دونيسو واحد شيغتا إلهي وكسينيا اشفع تشفع ارقد دلب بالورانيا ارقد adiga waa la aqbalayaa shafaacad qaad markaas aan oran doona rabbi ummati ummati wuxuu oran doona rabbi ummati ummati ma oranayo inantaydii Faatima ma oranayo maaragtaan zawjadeedii Aisha dadka xaasaskiisa ta ugu jeclaa waa Aisha radiyallahu anha dadka kalena ta ugu jeclaa waa Faatima radiyallahu anha safar hadii uu ka yimaado masaajidka intuu laba rakaca ku tukado inta xaasaskiisa uu san tagin nabigu inantiisa Faatima ka bilaabi jiray ziyarada markaa bay dhunkani jirtay Amr ibn Aas Allah raali ka noqday baa saxaabada ku yiri nabi maxamed asxaabta aanu iigu jecel yahay markaas lagu yiri arbilo laga jeclaa cid kale may leegama jeclo nabiga aanu dad iigu jecel yahay markaa buu waan weydiinaya nabiga u kaadiya markaa yaa rasuulallah dadka yaad ugu jeceshahay markaa buu nabigu Aisha dadka ugu jecelahay buu yiri xaaskiisi inako ninku naagtiisa xaaskiisa iyadaan dadka ugu jecelahay uu ka xishoonayo soo wala oranay islaantiisu u jecel yahay عيب معها دعايد معها وعرفي وعشرة النبي عليه الصلاة والسلام وريريس كل رقمي بدك يا دوج عشاء عائشة يا رسول الله ما حقها وينك حق الرقم يدي ويديسها أبو بكر أبيهن هدنا عمر وانسكا أبو سيد وحن كبا قيبون هدان سيودي لها إنه النبي يقدق لها قفك قدام بين صحابتي سوج عليها marka nabi maxamed tu dadka ugu xaasaskiisa ugu jeclaana waa Aisha ehelkiisa cid ugu jeclaana waa Fatima banka qiyaamo marka la soo saaro oran maayo ya rabbi Hasan iyo Hussein baan ku weydiinaya ergo oran maayo wuxuu leeyahay ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummadayda ummadiisu waa inaka ummadiisu waa asxaabtiisi ummadiisu waa cid alli cidi muslima shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nabigu maalin ziyaartay markaasuu u duceeyay dadna markaa buu rag la socday buu nabigu soo daymado wuxuu yiri waditu law anni laqiitu ikhwani waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaa bay saxaabadu yiraahdeen nabi allah anaka walaalaha ma nihin miya
markaa buu nabigu yidhi maya inaku asxaabtay baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku odhan doonaa kuwa gadaal may iman wali adduunka laakiin waa iman doonaa buu nabigu yidhi markaa bay saxaabadu yidhahdeen oo adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay arkin qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg waxau nabigu yidhi halkii ay weysada marin jireen oo iftiimayso cadcad ayay banka qiyaama iman doonaan deedna markaasaan ku garan doonaa buu yidhi calaamadii weyse qabka qofkaan weysaysanaya ka warramaysa qofka kubkiisa weli biyo aanan marin ee ilaahay aan u sujuudin ee maskiid aan soo gelin maxaa lagu garan isagana dadka salaadaha shanta waqti ilaalinaya banka qiyaamaha lagu garan doona ayaka midkiin hadduu leeyahay buu nabigu yidhi fardo qoobab ka cadcad oo wejigana ka cad haddii lagaga dhex daro fardo madow oo wada cascas fardihiisa miyuuna ka dhex soocanayn saxaabadu haa uu ka dhex garan doonaa markaa buu nabigu yidhi ummadaydu banka qiyaama waxaan ku garan doonaa halkay weysada marinayaan oo iftiimaysa iyo iman doonaan buu rasuulku yidhi kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooga ku haystay ee islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayakoo dunuub samaynayana adduunyada ka baxay ayakana nebigu ka hadhi maayo jahannama lagu guri ilaahay jalla wacalaa markuu naartaa jahannama uu kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada odhan doonaan diintii islaamkeed u nisbad sheeganayseen hamee waxbay inii qabatay sawnaka meel keliya ku wada jirnama hal mar keliya ayay odhan doonaan waa muxammadaa waa muxammadaa waa muxammadaa markaa buu nabigu odhan doonaa yaa rabbi kuwaa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummadaydiiyo waa cusaaddii ummadayde cadaabkaa intaad cadaabtay ayaad kaga aargoosatay ilaahayow ilaahow shafaacaddeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahannama uu ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu yidhi iyakoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaha magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi deedna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoogiibaa soo bixi doonaa deedna marka jidhkoogu sidoodii uu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaaddii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegey naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allahdii adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxbay nii qabatay odhan doonaan sawnaka meel keliya ku wada jirnama inninkoo laa ilaaha ila allah leh deedna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa qulu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sal alla alay wasalam laa ilaaha ila allah qulu laa ilaaha ila allah waa ka soo bixi doonaan iyakuna rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waa maalinta gaaladu odhan doonaan magaca un maan islaam ka sheeganno maanta naar kuma jirin annakune walaal islaamnimada waa nicmo weyn oo ilaahayna siiyey ilaahay aan ugu xamdino abaa aalib nabigeenna adeerkii sal alla alay wasalam markuu sankaraad ku qabtay nebigu uu ziyaartay markuu u tegey waxaa ag fadhiyay abu jahl calayhi lacna markaa buu nebigu xagga madaxa ka fadhiistay adeer qul laa ilaaha ila allah buui hal mar keliya laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamaha kuu shafaacad qaadiya bal dhegaysta hal mar keliya markaasuu abu aalib uu aamusay xagga kale waxaa ka fadhiya abu jahl
أبا جهل باسوجي ذو كيري أترغب عن ملة عبد المطلب أبا طالب أذو قد هاية دينتي عبد المطلب أووغا أو أبها يا أبياشي أتكسو قادي مياد ما أنت كتاك يساوي محمد وركي سقادنا يسا بركابو آمسو هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن يركدب الله هذا قل لا إله إلا الله وحاج لك عند الله يوم القيامة لقيت هذا الكاس إن يردق دقاقا نقدايا إن ير وأدونا هاي وصوقا بيننا بركابو لا إله إلا الله ده هو أبو طالبنا حقك أبو جهل بافرديا بلا هو حقي باطل كيف أسقر فرديا دعوة دي حق أيوه هي دعوة دي باطل والصراع لبدا ما كلا حران وقو سيدا بنوني ده لبا قلو اسكا سهور جيدا مروبا او عيارام كون كان قبيقيس بنوني بالغو عياريا وقالا يانا كو عياريا حق أيوه هي باطل كل بقولة دي الددال سريسا أي أدونك قبصا أهل الباطل كو هدين نجد ددال سريان شر بي أدوية كو في ذنيان فساد بي أدوية كو في ذنيان ظلم بي أدوية كو في ذنيان بين بي أدوية كو في ذنيان فسق فجور بي أدوية كو في ذنيان أهل الحق وهدي ددال كو وكرمرنا خير يا وناق يا إحسان يا عدالة يا محبة يا النوض يا أدوية كو في ذنيان صراع لبدا قلو إلى قيامها وسيسنا يعني لا بك قيام الله قصوا بحاجة حقنا إلهي عز وجل يا أنبياء سأيا كمعلمين يا ملائكة باطل كان إبليس يا شياطين يا منافقين يا يهود يا نصارى كمعلمين حزب الله هي حزب الشيطان ما المعصية مركات كجرتو حزبك الشيطان كاد أقرقرتي أقو مسجد مركات دحفر خير كشقين يسيد خير مغليسيد حق حزب الله بات كبرتي أقو حق إلهي بات كشقين يساعد حقنا وحافظ يا محمد عليه الصلاة والسلام حقك لنا أبو طالب أبو جهل بافرديا مرنا النبي قال الله ساسويغا مرنا أبو جهل بالله ساسويغا أما أنت سودك آيات القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين كذا دقوا جعلات هذين ميسد بلغو يري لكن إلهي قودونا سقى هذين بلال الله رالي كان نقضي بالله شيء مالين مالمها كمدا أسقوا دعاء سنة إنو يري إله هداية قعنتي سكوها يي النبي محمد قعنتي سأنا كي يلين محل بيري بركاس الله يقول بلال وهذا الكلام حادو ترو والله وارنتي هدي نبي محمد وعد هدين يو أنا كهداية يمسوا قادين أديرك أبو طالب وهدين لها بيري أديرك أبو لهب وهدين لها بلال وحبشية يا إلهي هذه أبو طالب ومكي وقريشية ونبي محمد أديرك يا إلهي ما هدينين سلمان وفارس يا إلهي هدي جل وعلا ها وليد بن مغيرة وقريشية والله هدين وهي الهادي وإلهي يا هداية هي مركا هداية واتيد توفيق ذاهد وافجنت إلهي وحي عدك لما هيسو لكن تصدق ذلك إن حق الله تصو ودعوة الله قارسيو والله براروجيو والله نصديحيو وناق الله فرو ومعروف وحماها الله قربو تاسوا وظيفة الأنبياء وشغاد النبي كان الله صادري وأنا شغاد الله قد دوني أمد النبي محمد قبط إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء marka hidaayada ilaahay baa haya Allah inagu sugo hidaayada Abu Talib ay ka dhacday naftu uu ooyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ya ammi saasul ya ammi la astaghfiranna laka ma lam unha anka bukaydi ya ammi adar hada marba adigu kelmada ay oran weyday aniga oo leedahay calaa millati Abdul Muttalib baan ku dhiman adigu tiri aniguna ka tagi maayo inaan dambi dhaaf ilaahay ku weydiiyo ilaa inta laga reebayo ka hor
adeerkii oo ku dhintay xaaladaas ayuu nabigu bilaabay inuu u duceeyo yiraahdo ilaahu adeerka u dambi dhaaf ilaahu adeerka u naxariiso ilaahu adeerka u dambi dhaaf ilaahu adeerka u naxariiso asxaabtina way maqleen markaa bay adeeradoodii aabayaashoodii gaalnimada ku dhintay duco u bilaabeen markaas ilaahay yiri ma kana lin nabiy والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم عجيب وجعل النبي وأدركين نار كبداد إنه سلاني ما كردنتو maalintii fatx maka uu nabigu furtay sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr as-Siddiq ba aabihii oo gaboobo indhabeelay buu nabiga u keenay Abu Quhafa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa saxaabiga kaliya ee isagii saxaabi noqday aabihii saxaabi noqday hooyadii saxaabiyad noqotay xaasaskiisii saxaaba ay noqdeen ubadkiisina asxaabu Muhammad ay wada noqdeen Abu Bakr as-Siddiq kaliya waayo wuxuu ahaa ninka ugu dhaqaale bixin badan buu ahaa marka diinta dadaalkeega difaaceega ugu dadaal badan ugu fikir badan nabiga cid isaga ugu dhow ma jirin maadaama dadaalkiisii boqolkiiba uu galiyay diinta ilaahay wuxuu ugu abaal guday labadiisii waalidood daah ilaahay inuu hidaayada siiyo fatx makuu keenay aabihi oo indhala markii nabigu dadka uu u laqinay tawxiidka markuu Abu Quhafa oo timihii wada cadaadeen oo xirribihii wada cadaadeen oo indhalu keenay gacantu nabiga gacanta u saaray markuu ashahaatay ayu Abu Bakr iska ooyay Allah raali ka noqday baka bal si fiican qasada u dhageysta markaa uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr maanta waa maalin farxad ah ما هم مالين لو أيه محل لو يسابو كي أبها وجدها يا إلهي كوسو هذا ينار إلهي كبد بادية هذا المعني سوها وحول يا رسول الله وحن فرح لها هل كأبهاي وجوجو أذرك أبا طالب وجوج لها أي كفرح أي فرح لها بولي والفيصل وحن لقوي وحق لما هبولي وحن كفر لها halka aabahay maanta uu taagan yahay Abu Quhafa oo Aba Talib uu joogi lahaa oo hortaada ku islaami lahaa oo marka adigu aslaannimada adeerka aad ku farxi lahayd ayaan aniguna farxi lahaa buu ka yiri bal ka warrama shucuurta ka warrama Abu Bakr ku jirtay intee laagtahay innaka maanta agteena dadkeeni baa bila salaada dhalinyaradeenni baa maalinta ka dambaysa diinta ka sii fogaanaysa يا حد مرغوني سو كفكر دين تاس ما جرتو درين حتى درين كيف جرين بما انت شعورتي انت دين الاسلام كو اكتنا اي كد المنتهينا انكنا ظلم ما كجرنا يوغادا مال انت دين ان قدام قنو دين كرو قادنو دين ان كشقينو مجتمعين دين ان كل ددالنو waxaan noo bilaamaysan nolol macaan oo cusub ay noo bilaabi doontaa wa innahu lakitabun aziz wa innahu lakitabun ilahi baari kitabkan waa aziz diintan izz ba ka buuxa sharaf arzaqad barako mahabbo nabadgelyo cadaalad khayr wanaag oo dhan izz ba diinta ka buuxa hadda kitabka ka shaqeeyna sidii ummadeena mujtamaceena diin uga muuqan lahayd oo wiilasheena gabdhaheena ubadkeena diin ku tarbiyadeen lahayn oo xaafadaheena qof bila salaada aan looga waayilaha waa wixii munkarka wadana gacanta qaban lahayn dadkana wanaag iyo khayrka aan fari lahayn oo dhalinyaro iyo odaynta gacmaha isqabsano aan nuqsaanta diinada xaafadeena sidaan u zuulin lahayn haddaan ka shaqeyno diintaas kor noo qaadayso ogow عزيز ويا كتاب كان عدي دين تغادة إلهي وعزية الله نفهم شيء إن شاء الله هذا يا وديار الدين تاين وقاته عز شرف أرزاق نبت قليو بركو هل كدين تردقتا إلهي هذا أنا كردق يوغو هل كدين الإسلام كأدقتب إلهي كردق dadulka dhigto dhulka adaa dhulkaas dhigay hadaa diinta kor u qaado see kor diinta kor loogu qaadaa
diin baanu noolaanayaa, diin baan baranayaa, diin baan ummadda ugu yeedhayaa, dadka diin baan ku xidhiidhinayaa. diin la'aanna qofku waa ku goynayaa. qofkaan xidhiidhinayo diinta islaamkaan ku xidhiidhin, oo qofka islaamnimada ku qadarin, qabiil ku qiimayni maayo, lacag ku qiimayni maayo, qurux ku qiimayni maayo. waxaan ku qiimaynayaa waa diinta islaamka. awthaqu cura aliimaan alxubbu fi llaahi waalbughdu fi llah. uu nabigu yidhi awthaqu cura aliimaan. war islaamnimadu hayna deeqdo, wax islaamnimo ka hoosaysa ha aqbalin. ninka muslimku waa laandheere. 1,700,000,000 oo shakhsi oo adduunyada ku noola muslimiina walaalahaya. cid adiga kaa laandheersan ma jirto. marka waa inaan ku wada shaqaynaa islaamnimo. muslim baan ahay. islaamnimada isku jeclaanaa, islaamnimada isku qadarinaa, islaamnimada isku buuqanaa, islaamnimada iskugu damqanaa, islaamnimada iskugu tubnaa. si diintaasi agteenna marka qiimo u yeelata bay culimmadu leeyihiin, waa inaan wakhtigeenna diinta ku bixinaa, waa inaan ka shaqaynaa, waa inaan maalkeenna ku bixinaa, waa inaan ilahay dartii u baxnaa. insha allah dhahda de ayaa u diyaara mar uun jamaacadada ilaahay dartii u socda inuu raaco. haye reexamar weyn maasha allah, maasha allah. masaajidkii shariif sharaf oo allah u naxariistay uu dacwadda ka bilaabay weeyaan markaskii dacwadda. wallaahi markaskii dacwadda manbacu lkhayr waa meelihii ugu horeysay diinteennu ka soo gashay geeska afrika. xaafadanaad joogtaan tusudama zaylac, muqdisho, marka, baraawe. meelihii saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin ay markay risaalada geeska afrika gaadhsiinayeen ay ka soo galeen weeyaan. marka diin baan dhulkan u imanaba inaku. markeena horeba haddii ajdaaddeenna la eego oo taariikhdeenii dib loogu noqdo, adduunyada waalidadeennu dalkan uma imana diin ba u yimaadeen. shaqadii ajdaaddeenna han qabsana insha allah. dembigeenna allah ha dhaafo, dembiga waalidiinteenna allah ha dhaafo, diinta allah inoo macaaneeyo, maralkeenna allah ha shaafiyo, mawtaadkeenna allah u naxariisto, amniga iyo iimaanka allah inoo ziyaadiyo, muslimiinta meelay joogaana muwaafaqiya midniman allah ha siiyo. dad badan oo walaalaheena ayaa ducad codsanaya in loo duceeye, qaarna la jooga, qaar inaga maqane. qof walba halkuu ka kurbaysay kurbada ka dareemayo allah ka faydo. kuwa bukana caafimaad sariic allah ha siiyo, kuwa ubad doonayana ubad wanaagsan allah ku arsaaqo, kuwa arsaaqadu ciriiriga kaga jirtana arsaaqad waasic oo barakaysan oo xalaal allah ha siiyo. diinta iyo daacadda allah inoo macaaneeyo, nabadana allah inoo adkeeyo. sala allahu calaa sayyidina